xanuunka Stockholm syndrome waa xanuun ka mid ah cudurrada nafsiga ah waxay haleeshaa qofka loola dhaqmo si xun ama si kaleba loo xumeeyo qofkaas oo ah sida afduub loo geysto qof kale halkaas uu jeclaanayo qofka dhibta loo geysto qofkii xumeeyay isagoo oo dareen u qaadaya in waa difaaco una doodo qofkii xumeeyay sida marka maxkamad la soo istaajiyo dambiilihii isaga xumeeyay hadda ogow qofka dhibaatada loo geystay ayaa jecel qofkii xumeeyay wax kastana isaga ayaa ka difaacaya waa xanuun jira oo haleela qalbiga waxa la cadeeyay xanuunkan oo ah xanuun si xun u haleela qalbiga inuu qofka dhibanaha ah uu dareemayo fikrado kalgacal iyo naxariis ku jirto uu hayo qofka dhibaataynaya isaga waxa uu soo shaacbaxay xanuunka loo yaqaan Stockholm syndrome 1973 markii ay jabsadeen niman tuug ah banki ku yaala Sweden gaar ahaan Stockholm oo loo oran jiray Gerit Banken halkaas ay kaamiradaha ku xiran cadeynayaan dad ka mid ah dadkii bankiga joogay oo muujinaya kalgacayl ay u hayaan tuugta iyagoo oo lacagta bankigana siinaya tuugta oo xitaa ka caawinaya inay tuugtu ka buuxsadaan shandadaha isla markii dambena maxkamadda Sweden ay uga doodayeen si loo sii daayo tuugtan iyo dambiilayaashan waxaana la haystay dadkaas muddo ku dhow 6 maalmood iyadoo oo la cadeeyay dadkaas in qacdi horeba ay qaadeen xanuunka loo yaqaan Stockholm syndrome waxa inta badan la arkaa caruur la kufsaday dumar la afduubtay qof kale ku gardaroonaya oo gaarsiinaya dhibaato aad u badan tusaale ahaan xilligii uu Jarmalka haystay Adolf Hitler waxa suuqaya yuhuudda waxa la arkay yuhuud badan oo garabkiisa taagan kuna taageeraya falka uu wado iyagoo ku dhawaaqay yuhuuddu ha dhacdo yuhuuddu waa tuug ama yuhuuddu ma istaahisho nolosha hadda iyagu waa yuhuud dadka waxaan leh waana yuhuuddaas oo la cadeeyay 8% dadkii ku noolaa Jarmalka oo ahaa yuhuuddaas inay qabeen xanuunka loo yaqaan Stockholm syndrome dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee xilligaas la sheegay dadkii uu ku dhacay xanuunkan waxa ka mid ahaa dhacdadii Patty Hearst oo ahayd gabar 19 jir ah oo la afduubtay waxay ka dhalatay qoys taajiriin ahaa waxaana la afduubtay 1974 sababtu waxay ahayd madax furasho maadaama qoyskeedu ahaayeen qoys taajiriin ahaa markii la haystay 2 bilood oo loo geystay kufsi jirdil gaajaysiin waxay jacayl u qaaday dambiilayaashii sidaa u galay iyadoo kala qayb gashay boob iyo dhac ay bankiyo u geysteen iyo dilal ay dadku la kaceen markii la qabtay waxa la sheegay inay qabtay xanuunkaas Stockholm syndrome la dhaho iyadoo markii dambena cafis laga dalbaday Mary McClory waxay dhacdadii labaad iyadoo waxay ahayd gabadh la afduubtay markii la haystay hal sanana ay boolisku ogaadeen meesha ay joogto kadib markii ay tageen gurigii ninka wax afduubtay waxa dhacday rasaaseyn u dhaxaysay ninka iyo booliska waxa ay toogatay gabadhaas laba ka mid ah askartii iyadoo oo difaacaysa ninkii afduubtay ee dhibaatada u geystay markii dambe ayaa la sheegay inay qabtay xanuunka Stockholm syndrome waxayna ku dambeysay in lagu daaweeyo dhakhtarka dadka dhimirka waxa ka mid ah dhacdooyinka Sean Hornbeck waxa uu ahaa oday siyaasi oo ku nool waddanka Austria waxaana loo geystay dhibaatooyin badan isku day dil qorshaysan waana markii la sheegay odaygaas siyaasiga ah inuu ku dhacay xanuunka Stockholm syndrome waxa uu booqan jiray odaygan uu ku booqan jiray jeelka ninkii isku dayay inuu dilo halkaas uu dhar cunto iyo hadiyado kale ugu geyn jiray ninkii isku dayay inuu dilo